saaxiibayaal subax wanaagsan. Maanta waa subax kale oo qurux badan. Waxaan isku dayay inaan idin daawodsiiyo dhammaan Kabadokiya oo dhan oo markii ugu horreysay aan imaado Kabadokiya. Meeshan waa meel aad iyo aad u cajiiba, bal insha Allah indhihiina saaxiib igula daawada quruxda iyo waxaan ku yiri meeshan. waa maalintaydii labaad oo aragtaan labiskayga uma xidhanahay, laakiin waa maalintaydii labaad. hoteelkaasaan deganahay waan ka soo kaxnay, asxaabteydina waa ka baskaygaan raacaynaa. saaxiibayaal noo socda, aad iyo aad baan idin salaamaya. fadlan subscribe, like, share. saaxiibayaal waxaan yara qaadanayaa kafee yar. halkan waxa weeyaan waa gaadhi yar oo waxa ku dhex yaalla kafee shop. markaa waxaan ka qaadanayaa kafee si aan ugu adkeeyo maanaan quraacan weli, laakiin kafeegaa yar baan rabaa saaxiib inaan ku adkeeyo insha allahu tacaala. idin socdo dadkani waa dad shaqo taga, waxay yimaadeen 4 subaxnimo halkan si ay kafeegaa ugu iibiyaan gaadhigaas. meeshan dad aad u fara badan oo dalxiisayaal ah yimaada. weli waa madow waqtiga, yacni weli quruxda may soo bixin. waxaan kuseenayaa markay quruxda soo baxdo inaan soo sunsetka iyo balonisku say noqdaan. Kapadokya is the best. You should visit it. Hi. Me and my friend Ahmed. How's he? صاحب الاقي حاجه جدا بس سوي وقت هاي ما شاء الله تبارك الله. دي قرب انت. السلام عليكم صاحبي، يا سلام يا حد. halkan kusugana waxa weeyaan waa buurti viewga ee laga daawanayay magaalada iyo balonis markay cirka marayaan. waxaan dad aragtay waxay saaka soo kaleedan soo yaaceen inay daawadaan viewga marka qorraxdu soo baxayso baloniskuna ay samada joogaan. saaxiib meeshan wallahi aad bay qurux badan tahay. marka la ilaaga واو صاحب يا ماشي هذا الكرميس والله. انت يا سفري ماشي مالك قروح بدل ما نعرق.
quruxda badnaa ee fiyuga Kabadokiya saaxiib halkaas noogu soo dhamaaday waanu quraac tagaynaa waanu gaajoonaynaa insha Allah taala magaaladan tagaynaa xaafadeena baan dhacaynaa sidoo kale waxa halkan ila taagan ninkan waa photographer waxa weeye waa reer Lebanon asxaab aad u fara badan meesha iska baranay Lebanon buu ninkan ka yimid sidoo kale kamarada waxa yahay Ahmed oo ka yimid Algeria sidoo kale my friend oo ahaa waxa ku yiri wadaha safarka ayaa la taagan aad iyo aad baan islaamay بداية البلحة والله هيجي دكتور